مرحبا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نوضي داود يا الملك استوى جوكتان كسر هذا برنامج كابان أو أن دون إننا ورئيسي كلية لأنه ماريها وكالة بيها إيه مقالة بالبرع سليبان عبدي حسين الله يقانو سليبان عبدي اللولية وذا ماري مركب روحك ودين لحين جود هان حولها وكالة بيها قبل كساحل جرحنا حرونته قبل كي بالبرع يبلغ سيدا يجود هاي هي وقتها أدبادو محسنتي عبد السلام حرير أديك يتيفي قرن كوان هذا علنيا يا مختار صاحبك يا runtii waxa ilaahay loogu mahadnaqaa inagoo ka soo baxnay waqtigii dhoofka xoolaha ama muusinka inay berberi maanta aanay jirin wax abashaa ama waxaan kala kulanayo maanta caqabada oo aan oran karno way nagu hor yimaadeen waxa kale oo in ilaahay ugu mahadnaqaynaa magaalada inta leego maanta aynu oran karno waa sanadkii koowaad aanay jirin haba yaraatee waqtigii ugu kulaa aynu ku jirnay aan oran karno haddana ma jirto cabasho biyoodo maanta la qabaayo xafiiskayga cabashada timaada ee biya wax cilad keentay mooyaane laakiin inaanay jirin ilaa hadda cabasho aan oran karo waa biyo la'aan oo magaaladu way jirtaa marka guud ahaan xaaladda gobolka way fiican tahay xagga biyaha deegaankana runtii waxaad moodaa inay dadka laftoodii iskaashiga iyo horumarka iyo danta ku jirta inay dadkuna ay fahmeen sidii loo wada ilaashan lahaa biyaha iyo horumarka gobolka ka socda wakaaladuna runtii qaybun bay ka tahay xagga horumarka iyo fahamka ay dadku in korista ay ama biyaha noqoto ama layr noqoto ama waxyaabaha asaasiga muhiimadda u leeyihiin bay dadku inay dareemeen ayad muddo hadda waqti xaadirkan maraya halka biyaha muxuu ahaa runtii aanay waqtigan cabasho ka jirin waa run qulada dhawaaq maanu maqal laakiin dadka xaafadaha durugsan sida xaafada burcasheekh oo xaafado ballaaran kamid ah oo waliba xaafado kale cusubna ku darsameen hada jeer systemka biyaha ayaan jirnay ma soo gaarin biyo la'aan ka caban jirin marka imanka waxaad leedahay xaafadaha biyaanu gaarsiin cabdisalaan xariirow runtii way jiraan meelahaas waa meelaha ay jirto in beebka extension lagu sameeyo biyaha oo waanu bilownaa marshuucooda ugu yaraan waxaan odhan karaa 7 qaybood oo aan odhan karo 20 kilomitir oo beeb ah ayaanoo qorshaysan bishan August bilaabmi doono insha Allah taala kuwaas biyo yaraan ma laakiin waxaan gaadhin beebka biyaha sida loogu talagalay baan u gaadhin xaafada waraabitaaga ama BGL ama loo yaqaan wada jir xaafadan Bataalaale iyadana lafteedu ku jirtaa beebka fiilaanta maroon bedelino magaalo cad qorshayaasheedu insha Allah taala waxaan bilaabaynaa ilaa 12 kilomitir oo beeba inaanu magaalada biyo fidin u sameeyno ku yaryariina ama beebku ku xun yahay inaanu ka bedelo meelaha aan biyo gaadhina inaanu insha Allah taala gaarsiino laakiin intii hore intan aan sheegay waa intii hore intana waxa iskugu jirtaa inta badan waa beeb biyaha sidii beeb fiican oo high pressure ay u helaan inaanu iyagana aan u bedelo aan mid iyagana aan u sameeyno beeb fiican aan u gelino taasa jirta marka qorshayaga ku jirta insha Allah taala inaanu bishan ba isla August ba baad ciidkii inaanu bilowno meelaha uji ofiiskiisa koowaad marka mashruucayada ka caawinay ma wakaalada bixinaysa kharash ku baxaya hawsha mashruuca beebka lagu gelinayo xaafadaha aad soo sheegtay maray wallahi waxaan oran karaa 50% waxa naga caawinaya beebka biyo fidinta ama biyo balaarinta aan ku sameeyno magaalada gudaheeda waxa naga caawinaya dawladda hoose 50% ina waxa naga caawinaya hay'adda maxalliga African Development Bank iyo hay'adda CARE iyo wasaaradda horumarinta biyaha oo iskaashanaya marka waa 50-50 laba dhinac baan isbarbar wadnaa qayb dawladda hoose aanu nagala shaqeynaysaa qaybta labaadna waxa nagala shaqeynaysaa CARE iyo wasaaradda horumarinta biyaha oo iyaguna marshuucana marka hore fulintiisa iyaguna ay fulinayaan maalgelintiisana ay leedahay African Development Bank wasaaradda biyaha muxuu doorkeedu noqonayaa haddii ay labadaasi dawladda hoose iyo ay maalgashiga bixinayaan iyo muxuu ahaa hay'adda soo sheegtay African Development Fund wallahi wuxuu noqonayaa anagu muhiimadu inaanu qorshihii anagu aan la nimaadno maadaama awoodiyadu ay kooban tahay baahiyaadkii anagiiba waxaan waxay ku imanayaan inta badan oo baahiyaadkii anagu xaqii dalabkii iyo qorsheyntii iyo shaqaalihii iyo wixiiba
annagii bay dee hoos imanayaan oo wixii markay halkan soo gaadhaan annagu ka faa'iidaystay baanunay cidda dalabka laga helay iyo cidda ka faa'iidaysanaysaaba annagii marka roolka iyagoo annaga waxa weeye inaanu ku ilaalino inaanu ka qayb qaadanno inaanu ka faa'iidaysano dee wixii inaanu ilaashanno waxaanu dalabkana wax annaga naga yimi laakiin dee fanka intaa leeg aanaan annagoo kaalad ahaan aanaan awoodin inaanu bixino muxuu ahaa allahuma salli calaa axmed wakaaladda biyaha ee magaalada berbera maaray waa soo jireen muddo dheerna runtii way shaqaynaysay maamulo kala badan u kala dambeeyo isbedelina runtii way jireen xilligan adigu maariha wakaaladda biyaha iyo boqorshaha ku talgalka iyo halkaa doonayso wakaaladda inaad gaarsiiso wax ma nooga sheegi karaysa cabdisalaan waa su-aal runtii aad iyo aad u fiican kulley waa run maarayaal aad u fara badan baa runtii wax dhintiyo wax noolba intii dhibantay allah u naxariisto inta noolla waxaan u rajeynaya cimri dherer iyo caafimaad runtii way jirtaa waa run laakiin qorshahaygu aniga waxa weeyaan haddii aan kaaga sheego qodobada ugu muhiimsan ama ugu adag ama ugu faa'iidada badan waxaa ka mid a inaan anigu maanta xarunta wakaaladdu inay yeelato xarun lagu shaqayn karo oo ku habboon shaqada la qabanayo maadaama gobolku uu kulul yahay waxaa kaloo qorshaha labaad yahay inay magaaladu beebka weyn ee soo gala main beebka inaanu iyadana wax ka bedelo oo inaanu iyadana aanu samayno insha allahu tacaala maanta diameterkiisu waa 12 ama inchkiisu inaanu intaa in leg inaan ku darno 24 aan ku dhigno waxaa kaloo noo qorshaysan iyadana in kayd biyo magaaladu ama storage inay iyaduna yeelato runtii qorshayaashaas waa kuwa dhayliga aan ku talagalkooda iyo qorshahooda aan bilaabay waxaanay noqon doonaa insha allahu tacaala fulintooda sidoo kale horeeyaan mooyaane laakiin ka koowaad iyo ka labaadba sidai iskugu xigxigaan ama u kala suurtagal u yihiin ama baahiyaadkooda u kala badan yihiin already waa baahiyaadku way 1 iyo 2 iyo 3 ayay u kala qoran yihiin markaa ku talagalka iyagu ugu weyn waa dhismaha beebka in la bedelo iyo in magaaladu kayd yeelato maanta bamka iyo maxaa la yidhahdaa ceelka iyo wax u dhexeeya magaalada ma jirto wuu ciladoobi karaa mashinku wax waliba way iman karaan marka runtii wuxuun baan odhan karaa waxyaabaha inugu muhiimsan waa beebkaasoo loo bedeliyo magaalada in loo sameeyo kayd magaalada berbera marka ka hadlayno horta dhowaan intayna taa u gelin waxaa jirtay in ceelal biyood oo cusub tiraba malaa 2 jeer la sameeyey mid la yidhaahdo waxaa samaysay shirkadda DB Wall iyo mid kaloo iyana dhowaan ay care international hay'ado kale oo iyaguna malaa la xiriira iyo malaa African Development malaasna waa ku jiray haddaba ceelasha intooda badan waxaa la yidhahdaa biyihii waa la helay oo waa meeshii biyo waa joogaan laakiin barnaamijka weyni beebka ka imanaya masaafada gaaraysa 6 iyo 20 kilomitir oo dhexeeya berberiya ceelashaasoo ku yaala faradeero iyo agaarkeeda ayaa la sheegay inuu burbursay ama aanu biyaha wada qaadi karin marka dad badan waxay aaminsan yihiin inaanu biyahaasi aanay magaalada berbera soo gaarin iyadoo marar horena biyo la'aan runtii laga cabanayay oo ciladuna ay tahay beebka arrintaas maxaad kala socotaa cabdisalaan waa si fiican beebkaasi sidaad sheegtay 26 kilomitir waana beebkaan kuu sheegayaan ku leeyahay bedel buu baahan yahay biyo kastoo inuu soo saarno wax badan ma kordhinayaan ilaa iyo beebka la bedelo sababtoo ah dee intii ay qaadi jireen buu beebku qaaday haddaad biyo kasta soo mariso intii buu qaadayaa marka waa tan ku leeyahay qorshaha yaasheeda ugu horeeya waxay noqon doonaan biyo waan haynaa kala jab 4 ceelba maanta ku jira isla bishan August insha Allah taala iyagana xiriirintoodii aan beebkan ku soo darnaan bilaabaynaa laakiin beebkii biyo ma kordhinayaan laakiin beebku intiisii ayuu ahaanaya laakiin biyo weyn oo joogaan maanta bartoodii oo biyo ku filan magaaladu werwer ma laha oo biyo laan inaga xageena ma haysato laakiin beebkaas uu yaryahay oo caqabada aan kuu sheegayn hortaagan bay number 1 ka tahay marka hay'adihii mashruuca fulinayay ma soo badhigteen inaanay biyaha suurtagal ahayn la beebka wax laga qabto cabdisalaan waa la xiriirnay hay'adahaas runtii xafiiska waxaan joogay maanta muddo 4 bilood iyo badha waxyaabihii qorshayaashii wadayna qaar aan wax ka bedelay way jiraan oo